cataashna waxaan leeyahay dee ninkan lagu ugaarsanayo keliga u soo istaag ninkan lagu karbaashayo jooji ka dhaxbax nin gabarka sool baa tahay yaa muuse ku adeegsanin daa hoostiisa ku gala adigii baba ina Cali Waraabe amaasi waa siyaasi weyn anigu ina Cali Waraabe waan taageersanahay waa nin qaatumo ila dhisay aad baan u taageersanay laakiin waxyaabaan ku diidanay garaadkayga ammaan haysiyo oo siyaasadda soo dhaxgelinayo ammaan balaaran siiyo dawadayaal waqtiga wax fadhida hadda Shukri Xasan Xirsi oo kamid ah gobolka Soomaaliya kamida waa gabar reer qaatumo ama baa reer Soola Shukri ugu horan soo TV SMS waxaan la soo weydiyo Soomaaliya wax ka farmad wax fasilan doorashada loo deegayo doorashada warasada haweenka Soomaaliland baarlamaanka ka maqan yihiin deegaanka ka maqan yihiin doorkan iyo haweenka Soomaaliland يا رب دورشينك maxay ka qalqal karaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلامي تيفيغا اس وايد السلامي دورك gabdhaha dumarka Soomaaliland anigu horta ina maqashay ma ogiye anigu gabar waxaan ahay madaxweynaha qaatumo ayaan ahay iskuma magacaabin dadku waxay leeyihiin xisbi baa tahay xisbi ma ihi gabar waxaan ahay booskii madaxweynahayga Cali Khaliif Gallayr Professor Cali Khaliif Gallayr Allah u naxariistay iiga tagay oo ii dhiibay ilaahayna waxaan ka bariyaa gabadha igu xigta oo madaxweyne ku xigeen aan ka dhiganayo madaxweyne ku xigeen ma jecliye banaan minister aan ka dhiganayo waa gabar reebo hoodla ah wasiirka maaliyadda waa dumar xogayntayda waa dumar gacan yarayga waa kan ilaa fadhiya waa dumar dabaka ila waxaana ka bari gabdhaha hadda jira xisbiyada hadda gabar kale magaceeda ma garanayo ayaan ku arkay miidiyaha iyadana soo dhaweynayaa shuhuurna gabar fareen aan nahay weeye iyadana soo dhaweynayaa waxa miyada isku magacaatay ataash baa u magacaabay gudoomiye ku xigeenka waa bari waan ku soo dhaweynayaa waka way wax ka rantaasiin ay Shukri Soomaaliland doorashada ka dhacday dalka ka dhacay haween baad tartamay baarlamaankii iyo gol deegaanka inta way mid musabixin marka laga rabo gabadha ka tabay baybo oo ka bacin kamaarka laga rabo Soomaaliland maanta waxa farmay tartanka warada farmaya tartiga warada Soomaaliland ka farmay xisbida loo gudbaya haweenka Soomaaliland aad ka mid ah dhacaysa ku sheegay kaalinta ka qaadana Allah marta anaku tan haysataan ku sheegaya reer galbeedka xitaa way haysataa Afrikana warkeeda iska dhaaf Soomaaliyana ka sii daranba anaka rag ba lugta hoostooda gelinaya anako hal dooradii haweenka Soomaaliyeed oo Somaliland ayaad hoosta ragna gelinayaan rag aan waxba qabanaynin oo waxba ku filan horta wax ma ka hadlayaaba kuwayga ka soo jeeda SSC baan ka hadlayaa ka soo jeeda labo ama saddex baan sheegi karaa inay wanaagsan yihiin mana rabo inaan boont kareeyo dacwo baa ka hadashid arrimahaaga dacwo baa la sheegayaa laakiin saddex mooyaane inta kale wax alla waxay u qabteen dhulkii male ceel yar may qodin isbitaalka may samaynin mashruuc may gelin wada may dhisin in hal doorkeena la dilay kama hadlaan anaka baa ka soo hadlayno qurbaha oo leena war hal doorkeeni baa la dilay ninka hadana xukuma xitaa anaka si ahaan aniga gobolka Sool baan ka soo jeedaa hal dooradaydi baa la dilay gobolka Sool ma aha ilmaadeeraday waa walaalahay weeye dadkii igu xigo garabkayga ah ayaa la dilay maalinna xisbigaas kulmiye oo hadda xukuumadda haysta mayna dhihi sabriye iimaan ninka Faysal Cali Waraabe mooyaane ninka muwaadinka ah marmar iska caroodan mooyaane oo siyaasadda looga badiyay mooyaane isaga baan yiraahda hadaan raahay reer qaatumo SSC na waxay dhashay dadku waxay dhahan SSC ay Shukri sheeg SSC waa run waa SSC qaatumay dhashay marka waa ka anigu qaatumaan ahay SSC na waan ahay
على فرحان خاطر حاجه كنت بس waxay kumay dambeeyeen taasibaan ku maqnayn oo madaxweynaheenii qaaliga ahaa muwaadinka ahaa xisbiyada furay xisbiyadan hadda raggan ku jeestaynayeen ku lagdamayaan ninka furay weeye marxuumka furay umana mahadnaqaan nik dastuurkii horta xisbiyada intaana la gaarin horta dastuurkii la soo dhigo dastuurkii waxa lagu sameeyay boorame waxa sameeyay gadabiirsi aniga gadabiirsi baan aqaanay hadda waxaan maqlay qoladii gadabiirsi waxay ka tahay samaroon xamar waxaan ku aqaanay gadabiirsi iyo UK samaroon ya samaroon iyo saddex islaamood baa furay marka anaku kuma jirin hadaan nahay waqooyiga hartiga kumaynan jirin marka xisbiyada intay qalqaylaan special waxaan la hadlayaa xagla toosiye iyo waxaan la hadlayaa Cabdirsaaq Cataash horta intaydan bartoomin hala furo dastuurka markaas iyo haddaad hadda xitaa orodaan inta markaa wax noqotaan waa dastuurka in la furaa siduu madaxweynaheenii yiri Cali Khaliif Gallayr Allah u naxariiste ninkii Somaliland-ka ah oo la xumeeyay oo baashe iyo xukuumadan ay xumaysay oo ayna u tacsiyaynin ninka ila ordayay oo ay dhahayay kaali shukriyay fadhi hadhoofin oo waagan Mansoor deganaato 2020 hadhoofin tacsiba la dhigayaa ninka nagu daalay oo ku dhacay corona oo hargab ku dhacay roobka u ordayay madaxtooyadiisu u taagnaa sidoo Cali Khaliif sidoo Allah u naxariiste يا عديا الله reer galbeedka UK way sheegtay gabadhii wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ahayd baarlamaankii ayay ka sheegtay markay ordayeen ay lahaay caalanka waana la doortay waxa la yiri dawriyaashiina wad ogtiin dadku wax bartay masaakiinta beenta loo sheegay in laga dhaafo wali caruurihii horta waxbay barteen jaamacadaha laga wada baxay YouTube-ya la daawada casri baa la socda islaamihii ka dambeeyay qoladii siyaad bare Allah u naxariistay ka dambeeyay ayaa waxa wada wax la doortay iyo shafiil iyo ka yimaadeen iyo kaadif iyo wallahi waan ka yaabay yaa doortay xagee lagu doortay baarlamaanka nin fayliya ah ayaa baarlamaanka laga kala maqan yahay oo loo maqan yahay casir maxay to snack ayay waxay dhaheen maxay ahayd ha ito Somaliland sida marka caruurta yar iyo dadka wax magaratada waxba aan baranin seeraalaha xitaa aan baranin oo lagu maaweelin hal joojiyo SSC iyadoo meesha ku jirin Somaliland la wada leeyahay ina dhicin wax dhacaya ma jiro wax la dooranayo male goobaabinta baa ku jireysaan fariinta dumarka waxaan u dirayaan haweenka Somaliland fariidada ah ay ka mid tahay gabadha saaxiibada aan jecelahay Faadma Saciid ay ka mid tahay waxyaabaha aan ka barto waan dhageystaa Faadma Saciid markay ii sheekaynayso waxyaabo badan baan ka bartaa waa siyaasiyad weyn ma sha Allah marka inay dumarka u codeeyaan raggan ay daba ordayaan ay seeriga u hayaan ay sacabka u hayaan ay durbaanka u hayaan intay ka baxaan waa kuwa na dhameeyay oo jaamacadii caruuriyo qalin jabinaya oo kun isku qarash gareeyay oo say u dhisan yihiin ayaabay isla gabdhihii oo in xagee joogtaan warma imaaraadkan jooga ma sha Allah aan eri ayaa siyaasad saddex dad ka dhacay live-ka oo hooyooyinkii yaanyada gadanayay ayaa lagu kortumanaya caruurihii baa lagu kortumanaya dhalinyarada wax u sacbiyay in Cali Waraabo male wax u sacbi waaygo hore loo sacbiyay tayaris ago because waa la bartay marka in Cali Waraabo waxa tahay ninkii Maxamed Siyaad la shaqeynayay Morgan saaxiibkiisa tahay ninkan Xasan Sheekh saaxiibkiisa tahay ninkii kale muxuu ahaa madaxweynihii ka dhacay farmaajo saaxiibkiisa to Cali Khaliif Allah u naxariistay biljan baa la joogteen oo la sheekaysanaysa caruurta ama weelinaysa way ka tageen wax ku sacbiye male waag hore lagu sacbin jiray siyaasadana fayli aniga saaxiibkay baa taa ku jeclahay fayliyaad ku noqotay iska dhib xisbi new oo fresh ah ha soo baxo mag ucud
magacaa ku baaba'ay waa lagaa kala tegay cataashna waxaan leeyahay dee ninkan lagu ugaarsanayo keliga u soo istaag ninkan lagugu karbaashayo jooji ka dhexbax nin gabarka sool baa tahay yaa muuse ku adeegsanin daa hoostiisa ku galaa adigii unba ina Cali Waraabe amaasi waa siyaasi weyn anigu ina Cali Waraabe waan taageersanahay waa nin qaatumo ila dhisay aad baan u taageersanay laakiin waxyaabaan ku diidanay garaadkayga ammaan ay siiyo oo siyaasadda soo dhaxgelinayo ammaan balaaran siiyo